السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي قالي عن جعلي جنالكي كحنا سودا وهذا ولاشين سعديو إن الله سكسون نقد وناكسن إيمانتي محيني ودا سعديو إن هرت هدي نقع صوت هاي سودا بليز نو سبسكرايب نو صار جنالك هدي هرنا اللي جبتنا ونكعم هاد علينا هدي فيديو كيشان وحنقولها إنه لايك راي كومنتي جنه إن شاء الله بيحب فكرة هذا إنه قريب كرتا إن ما أنتوا حاربا إنه وفائديو أصحابتي إذا أما ماموينكي أما hooyooyinkeena Soomaaliyeed oo dhan araba maanta inaan u faa'iideeyo si special hooyooyinka shaqeeyo waxaan rabaa inaan dhahooy macaan soo dhawo waxaan rabaa maanta inaan ku faa'iideeyo waqtigaaga ayaa la gaaray muddo dhalinyarada ayaa rab u faa'iideyn jiray laakiin maanta waxaan rabaa hooyooyinka Soomaaliyeed inaan u faa'iideeyo aan dhahano waqti walba idinka idin taaganaho intaan soo gaarsiiyay ee hamigaan iyo farxadan iyo quruxdan siiyay ma sha Allah hooyo Soomaaliyeed meel walba ay joogto waa hooyo waxaan idin leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha idin barakeeyo Ilaahayna wax dhib idin ma tus inta adduunka sugantihiin aakhirane jannatul firdaws Ilaahay idinka waraabiyo maanta waxaan rabaa inta uga mahad celiyo asxaabtayda maalmahan dhan subscribe-ka YouTube-kayga inta yarta ka maqnaa ma sha Allah inta soo booqatay inta subscribe-ka ii saartay lama soo koobi karo aad idinku mahad celinaya wallahi waa idin jecelahay idinka dartiinaan wax idinku nahay soo hadaan idinka ahaan lahayn maanta waxa waa meesha ma soo fariisan lahayn maano soo maanta waxa rabaa hooyooyinkeena Soomaaliyeed inaan aan u faa'iideeyo inta waxa ii yaaray grisliina inta ii yaaro grisliinkan waxaan ku dhahay mar soo gaday ma isticmaali mashquulkayga iska badan laakiin xoogahan ka isticmaalay intan waxa ii yaala rose water saarkoosin baakana waa rose water ga wuu jira soo weyn iyo soo yar intan waxa ii yaala vitamin E ga sakareema idinku qasaya intu sina waa dhamay wala soo maanta intaan haystaa saddexdan shay haystaa arabo maanta inaan ka faa'iideeyo qof kale naguma faa'iideena waxa uu faa'iideynayaa hooyooyinkeena meel walba joogaan koo horta anoo rabo inaan u sharaxo macnaha ama faa'iidada ay leedahay inay marsamaan ama saddexdan ay isticmaalaan koo hooyooyinkeena ama maxalli jiray maamooyinka shaqeeyo kaleeta ama hatta hadii aad gabar tahay aadan shaqeynin ama aad guriga joogtid hada especially Nairobi dadka joogo kaleeta ama kaba soo qaad qof guri mutulaal joogo kaleeta waligay allaha hadii aad guri mutulaal joogtid bilis dacaslaanaha ahaanin lugaha way ka adkaanayaan ko cirbahana way ka jixjixmayaan waxa ku soo haray rose water-gan hadii aan ku sharaxo ko aan ka bilaabo rose water-gan waxa lagu talagalay jirka inuu nadiifiyo wasqad ka qaado dead skin-ka waxyaalaha oo qolofka ama waxyaalaha ku hahala oo ku harhara jirka qof waxa arkaysaa jirkiisa waxa u maleysaa cream inuu u marsanayno kaleeta waxa dareemaysaa qofkan jirkiisa ma mar kaleeta ma aragtay markii cijiyahada kala inta ay ka fiiqmaan oo kale waxyaalaha dead skin-ka oo laga fiiqo waxyaalaha dead skin-na dhaha waxa soo dhan ka qaadaya jirku ku nadiifinaya cream ku qasan kartaa waxa ku qasan kartaa sheeg qasilka ku qasan kartaa wax walba oo diida ma lahan siib waxa lagu qastaa qasilka ruuda maxalli timirta waxyaalaha loogu talagalay jirka in lagu nadiifiyo sidii gabdhaha arooska oo kaleeta markay rabaan jirkooda inay nadiifiyaan rose water zaid aad u anfacaya ka faa'iideystaan insha Allah rose water-gan Semberi waxa ka helaysin dukaamanka Arono Soomaali lazim waa laga helayaa Nairobi dukaamanka adeegoo dhan ka helaysin meelaha shopping-ka lagu gado dhan ka helaysin Hong Kong qofkii yaqaano qof kasta uu ka saaya qofkii isli jooga ama Nairobi out of Nairobi adi hadaado out of Nairobi xataa yaariin out of isli dadka joogo kaleeta hada oo isli dadka ka baxsan oo kaleeta dhan way fahmi karaan isli way imaadaan because meesha kaliya ka adeegtaan waay soo marka waxa kaleeto u baahantaa waa vitamin markii laga soo tago rose water-ga vitaminka sidoo kaleeto meel kasto shopping ugu gado waa ka helaysaa wax saas u lacag badan ma ahan $1 iyo baraa la gadaa basiga miya mas $1 astaghfirullah $1 ka soo bixiyo waa 100 shilin oo Kenya hatta wax badan ma ahan waa caagaas waxa ku jirto 90 xabo ku jirto 90 xabo oo xabad walbo saan aha ku jirto hada intu soo egihe saan u egihe baaragtaan u maleena saas u egihe waxaana la gadaa $1 la gadaa lacag badan ma waa 90 waa 100 shilin waa saas u egihe soo vitaminkaas gudaha ku jira kala bixaysa kadibna waa ku darsanaysaa
قرسلين قفل بايقانو وحاول هويين سوماليد باستعمالها لكن هل كميدا ربنا وقدك بحيث هاي ضد حاجر وجهي مرصدو قرسلين ضد حاجر وجهي مرصدو بليز أنا بليز هالس كدافو اللي جي ضدك كقالان حساسية وليه هالس كدافو وجهي كريم كأمرسنيسين حتى أما مركا قاركود فيري مركا انتا كريم مرستيد aad seexatid oo gacantaada oo kaleeta hadda inta aad ku jiifatid fiiriya inta markaasaan ugu jiifatid kareenkii gacantaada marsanaa markuu wajigaaga taabto xasaasiyada laga qaadaa semberi waa idin sheegaa kareen aad wajiga marsatay ama aad maxal dhihi jiray aad gacmahaaga mariso kaleeta iyo wajigaaga ka marinaysid isku mid uu ahaanay semberi wajigaaga waxa marinaysa different ahaado wajigaaga waxa marinaysid wax aad ogtahay inay nadiif yihiin oo waxna ku dhibeen ha ahaadaan grislinkan qof walba og yaani Soomaali meel kasta joogto madowga xataa had way isticmaalay way barteen waa wax aad u fiican hadda saas asoo adag hada inta qabatid aqasta xataa still adag waa because waxa laga sameeyay waxa ku jiro waxyaala oo zaid adkeenayo adag ka dhigayo xataa oo soo dadka qaar dhahan sokor ku jirto laakiin jirka nadiif uu kaaga dhigaa grislinka waxa isticmaali kartaa rooswataga ku darsanay fitamiinka ku darsanaysa jirkaaga wallahi laga ma sheekeen karo habeenkii marka seexanaysa ama maalintii oo dhan guriga marka joogatid aaweys qaadatid waxa sameynaysa lugaha inta marsatid aad maxalli jir soo gashatid ama tan ku shaqaysanaysa dad qaarkood waxa jiro wajiga inta wax marsadaan oo maalintii oo dhan ayagoo wajigooda wax marsan yahay saas oo yaani hooshooda ku qabsado hadhow markii hoosh ka dhamaadaan toos u qabeystaan wajigoodii waxooda nadiifka ka baabi'iyaan wasaqda ka baabi'iyaan yaani wajiga kuleelka oo kaleeta dadka jikada galaan oo kaleeta jiro waxyaalo waxa jiro oo loogu talagalay in jikada la galo kareeman waxa jiro jikada la galin soo hadii jikada la gashid wuu ku dhibaya please iska dhaaf hadii aad aragtid kareenka marka marsatid oo wadabka aad gashid inuu kareenka ku dhibaayo iska dhaaf wax ka fiican ma laha nafaqada iyo scrub iyo maxal dhigi jiray iyo qasilka ana qasilka zaid u jeclaa siiba qasilka cagaarka yaa qasilka cagaarka originalka oo hargeysa laga keenay wax ka fiican ma lahan kaas zaid u jeclaa wajigaaga nadiif oo kaaga dhigaya hadda arkaysiin in qadaa soo kariyay wajigayga wax ma ka aragtaan soo nadiif u yahay asaan ku soo dhaqday asaa ii marsana inta hoosha dhan haya asaa ii marsana kadibna waa ka dhaqda after 2 hours amal 3 hours iska dhaqay soo wajigayga masaas u qurux badan yahay soo marka maanta waxa rabaa hooyooyinka Soomaaliyeed meel walba joogan in uga faa'iideeyo rooswataga meel kasta ka heli kartaan fitamiinka meel kasta ka heli kartaan grislinka meel kasta yaala oo shopping ugu gado so please hooyooyinkeena waqtiga ee shaqada ka imaadaan hadii aad gabarto idaawanayso hooyada shaqada markay ka imaato inta u diyaarisid cishaha markay dukato kaleeta inta u diyaarisid lugaha muruq ugu siisid iyo gacmaha u marisid maxal dhihi jiray kareenka waxa sameeysa socks u gali hadii aad hooyadii too idaawanaysid waa rajeena insha Allah inaad adiga ka faa'iido doontid because hooyooyinkeena mostly ilma maray ka dab ordayaan maray shaqo jiraan maray mashquulsan yihiin soo marka hooyo ha iloobin jirkaaga insha Allah waxa rajeena inaad ka faa'iido doontid oo wax badan insha Allah aad ka fahmi doontid waana rajeena marka soo baroobayso ducada iisoo duceysid waxa way hawada inay iisoo mari doonto insha Allah ilaahay khayr ha iiga dhigo waqti walba waxaan jeclaa wixii farxadiina in aniga farxad ii ahaadaan soo marka waqti walba aad joogtid waxa ku leeyahay marsid grislinka si aad adigana aad ugu faa'iidid hadhowna jirkaaga uu qurux badnaa because dumaraana heemo marka qarkood xalfada iska aadayna hooyaatay gabadhaada la aroosi karaa soo last minute waa laga fiican yahay in ororado hadda bilaaw hadda aan kula hadlaay hadii aad daawanaysid please bilaaw grislin meel kastu yaala vitamin meel kastu yaala maxal dhihi jiray rooswataga meel kastu yaala mid kale vitamiinkan boqolaal xaba jirto oo vitamiinaad asoo waxa jiro cagaar ah arkaysa asoo waxa arkay cream mostly ma kan ani ahaa biso kaliya hadii aad weysid in aad mid kale iskaga tagtid vitaminka ay heshid oo caagan ku jiro noocan hadii aad aragtid waa isticmaali kartaa soo marka insha Allah idinkan waxa rajeenayaa waqti walba iyo meel walba aad joogtiin inaad family-giina uga faa'iideey doontaan waqti walba ay idin tahan ay idin wacnaato dadkii ayina u baahan hadii aad u baahneen waxa rajeena una u sii sheegaraysa si uga faa'iideystaan hadii ay hooyo ka fog tahay oo ay daawanaysid waa inaad hooyo u sheegaraysaa because adduunka hadda wuxuu noqday smartphone qof smartphone haysan ma jiro somahan soo hadii aad hooyo too daawanaysidna waxaan ku leeyahay shaqada hadda bilaaw dukaanka hoostaada ku yaala hadii aad tagtid xataa ma ka soo weynaysid grislin vitamin E iyo rooswataga xataa dukaanka qaarkood waa laga helaa
laga yaabaa inaa fitamiinka aad dukaamaka aad ka weysid laakiin aad u aadid suuqa soo marka insha Allah waxaan ku leeyahay hooy macaan aad u mahadsan tahay oo ku jecelnahay meel kasto aad joogtid hooy Soomaaliyeed meel walbo joogto waxaa leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha kugu xafido adii carruurtaada iyo zawjkaaga iyo familygaaga kan ilaab. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.